ilma lagu dawooba dabka lagaga bayraa takanada ku garataa dadnimada ku barataa dusha sare allaa jira daafaha warbayaal dadka loogu talagalay nin lahow wadaydayo xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu xusaayay munaasabada 18 May jaaliyada Soomaaliland ee dalka Norway ay soo qaban qaabisay xuska munaasabada 18 May oo lagu qabtay hool ku yaala bartamaha magaalada Oslo ee dalka Norway halkaas oo isugu yimaadeen dhammaan shacbi weynaha ku nool dalka Norway barnaamijkan oo idin soo diyaariyay Maxamed Saamcadiif waa 18 May 2018 oo ay jaaliyada Soomaaliland ee dalka Norway idin soo diyaarisay sida iyo daawasho wanaagsan بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس إله الناس من قل أعوذ برب الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم محمد عويل جزاكم الله خير السلام عليكم marka hore waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka xigta magacaygu waa Shucayb Sheekh Axmed Sheekh Nuux oo aad iyo aad u jecel inuu idinku soo dhaweeyo munaasabaddan ah xuskii 18 May oo hore loo soo dhigay mudanayaal marwooyin dhalinyaro iyo caruurba ku soo dhawaada xuska 7-labaatanaad ee 18 May Soomaaliland ha noolaato waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliland أحمد سليمان سودو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين dadweynaha qiimaha iyo sharafta leh ee ka soo qayb galay xafladan aanu jaaliyada Soomaaliland reer Norway idin qabanay aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin sida qiimaha leh uga soo qayb gasheen aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay maalintan qaaliga ee aynu hor soo dhignay maadaama ay bishii barakaysan Ramadaan insha Allah soo galaysa dhawaan bishii May 2018 aynu dabaaldegayno dib u soo noqoshadii gobonimada Soomaaliland oo 27 jirsatay iyo maanta u dabaaldegaynaa jaaliyad ahaan sidii aan uga barateen inaan xaflado wanaagsan oo qiimo leh idin qabanno yaan maanta xafladan idin ku qabanay marka gudida aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqayaa dadweynaha reer Soomaaliland meel kasta ay joogaanna waxaan leeyahay maalinta ciidaanba farxad ku ciida intaasaan soo dhaweynteeda ku soo gabagabeynaya soo dhawaada dhamaantiin laakiin caawa waxaan ahay xiriiriyihii programka mar labaad waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka wakiilka Soomaaliland Sulub Warsame Xuseen Sulub Warsame Xuseen ku soo dhawow mikrofoonka adigoo mudan bismillahir rahmaanir rahiim dhamaan assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sida halkan la inooga sheegay maanta waa maalin ciida oo ah inkastoo ay bishu 14 tahay aan hore u soo yara qaadnay waxaan u dabaaldegaynaa maalintii 18aad ee 1991kii
aasaaskii somaliland oo maanta 27 jirsatay taariikhda somaliland waynu ognahay marka laga soo bilaabo 60kii waynakii la midownay Soomaaliya kadibna 30 sanadood kadib waa tii hurguf weyn dhacday waxaynu wada ognahay Somaliland sidii wuxuu ahaayay hurguftaasi iyo dagaalkaasi iyo sidii loo burburiyay laakiin maanta alxamdulillah marka laga soo bilaabo 1990kii 27 sanadood heerkanu gaadhnay waa alxamdulillah halkan waxayna la joogtaa Ingeborg oo saaxiib dhow inoo ah oo Norwegian ah oo iminka iga sheekeynayso 1990kii Hargeysaan joogay burburkii iyo sidoo wadanku u burbursanaa marxaati bay ka ahayd laakiin alxamdulillah maanta wayna ka xusaynaa sanadkii 27aad inkastoo aanu caalamku wali wixii aanu ka doonayn aanu ka helin oo aanu ka mid noqon wadanada kuraasida kule United Nationska laakiin alxamdulillah heer waxaynu gaadhnay in aanu muxuu ahaa geeska Africa ama Central iyo South Africa waxaanay qaban inaanu qabanno oo ah doorasho one man one voter runtii dimuqraadiyadda halka ka dilaacday ilaa iminka caalamku uu ka yaaban yahay si kasta ha ahaatee innaka tale inaga doonaya waa miduun waxa weeye ummad kasta taariikhda sababtay u xusta waxa weeye in uu qofku is ogaado wuxuu yahay iyo halku ka soo jeedo iyo midnimo inuu ilaaliyo midnimada waa inaanu ilaalinaa sidaas baanu waxyaabaha inaga dhimanna ku gaari karaynaa mar koowaad iyo mar labaadba aad baad uga mahadsantihiin sida quruxda badan uga soo qayb gasheen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa programka igu qoran halkan inaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka gudoomiyaha guurtida Norway Mohamed Nur Tahar. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دمان مدنيالي مروين با انتي نحفلتك سوق غيب شيء وعندكم سلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسنتكي تطبيق لباتنات aynu u dabaal degno xornimadii aynu la soo noqonnay haddaynu nahay ummadda reer Somaliland qarannimadeennii xornimadeennii aynu kula bahownay Soomaaliya 1960kii kadib inagoo dawlad taama ah oo la ictiraafay oo caalamku ictiraafay oo 30 dawladood oo caalamka ka mid ictiraafeen aynu haddana door bidnay inaynu walaaladeen la bahowno oo ay iyadoo aanay wax shuruudi ku xidhnay iyadoo wax dokumenta iyo shuruuda oo aynu kala saxanay aanay jirin aynu saa kula bahowno walaalnimo shantii Soomaaliyeed oo la baadi doono NFD Ethiopia kilka shanaad Djibouti dagaalka in la galo oo shanta Soomaaliyeed meel isugu keeno Soomaali jacaylkii xornimo u dagaalankii inagoo wax kale eegin inaynu u guntano saynu shanta Soomaaliyeed meel isugu keen lahayn nasiib dar Soomaaliya in lamay garan
soomaaliya inoomay abaal gudin soomaaliya inamay qadarin soomaaliya inamay qiimayn soomaaliya xaqii aynu lahayn ee xitaa inagu aynu ku lahayn laba dawladood oo isu tagay may garan waynu samirnay muddo dheer baynu samirnay ilaa iyo 1960 1960kii ilaa iyo 1990kii waxaynu intaa ku jirnay samir cadaadin dhimasho burbur dagaal ayaynu ka dhaxlay wax kaloo qadarin kale aynu ka heladaayo waxaynu ka dhaxlay dagaal iyo burbur waxaynu go'aansanay 1990kii intaaba oo ina soo martay oo burbur leh oo dhimasho leh oo dhaawac leh oo rogmad leh oo diyaarad lagu garaac leh oo madaafiic leh inaynu haddana liqno oo ilowno oo ku ilowno inaynu xornimadeennii dub ula soo noqono iyo dawladnimadeennii 18 May go'aankii Burca ka soo baxay 1991kii taasaynu go'aankeena noqday haddaynu nahay ummadda reer Soomaaliland waxa go'aankeena noqday inaynu ka badbaadno dhibaatada iyo xaqdarrada iyo dagaalada iyo maamul xumada ka socotay 1990kii laga bilaabo ee aynu aragnay in ay kaba sii dartay Soomaaliya oo wadadii ka sii daran ay qaaday waxaynu go'aan ku gaarnay inuu ka badbaadno arrimaha iyo kuwii hore ina soo maray taa awgeed ayaynu xornimadeena dib ula soo noqonay iyadoo magaalooyinkeenni dhulka lala simay oo ay yihiin gabaahiir aan aqal ka taagnayn ayaynu bilownay nabadgelyo walaalayn ummadda reer Soomaaliland waxaynu bilownay dhismo iyo dhulkeennii iyo magaalooyinkeenni la burburiyaan daari ka taagnayn inaynu dib u dhisano 27 sannadood dagaal baynu ku jiray dagaalkeenu ku jiray wuxuu ahaa dagaal nabadeed nabadgelyo wuxuu ahaa dagaal dhismo iyo horumarineed dalkeenna inaynu inagu isku tashano wax qabsano caalamka inayna waxba ka sugin inaynu nabadgelyada ciidanka qaranka booliiska ciidamada amniga jeelasha maamulka horumarinta baac mushtariga inaynu isku tashano horumarin aynu sameeyno maanta after 27 years halka aynu marayno daaraha quruxda badan ee wada muraayada ah lacagta mid banka lagala baxayo baananka baac mushtariga wadooyinka laamiga ah halkaynu marayno ilaa iyo wadada Ceerigaabo halkaynu marayno oo laamiya oo maanta aynu halkaynu 7 casho loo socon jiray Ceerigaabo saacada loo socdo 4 hours alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay ina siiyey garashada alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay ummadda reer Soomaaliland garansiiyey nabadgelyo walaalnimo jacayl iyo wada dhalasho iyo waxay ahaayeen ee asal u lahaayeen ee dhaqan u lahaayeen inay ku caanamaalaan oo dalkooda ku dhistaan ilaahaygaas mahad marka runtii waxaan jecelahay oon mar la kulmay aanan ogahay in la sameeyay guddi jecel in ay dib u soo nooleeyaan jaaliyadda in ay dib u soo nooleeyaan ururkii ugu weynaa ee imika 30 sannadood ka jiray dalkeenna halkan ka jiray Norway walina jira ururkaas oo u baahan in uu markaa la xoojiyo guddi cusub iyo dhiig cusub uu yeesho dabadna uu soo mideeyo jaaliyadda mideeyo dhibaatooyinka iyo carqaladaha dadka soo waajahayana uu ka hortago bulshada rayidka ah marka ay kacdo qiimo badan bay leedahay ee dadku is abaabulaan taasna waxa raacaysa qaybtii kale ee siyaasadda hadaba jaaliyaddu hadaba halkan waxaan jeclaan lahaa in dhalinyarada la taageero xilkaysa saaray dadka la isu soo jiido la isu yimaado meelna looga soo wada jeesto ururkiina la soo nooleeyo
wixii turxaan bixinay loo baahan yahay jaaliyad ahaan bal inagu horta marka hore isu nimaadno aad iyo aadna isugu soo dhawaano taas waa qodob muhiim ah taa markaan ka baxo runtii dalkan aynu joogno waajib kale inaga saaran dhibaatooyin badan baa jira carqaladaha jira wanaagna wuu jira kulli daan waxaan ka tirsanay xisbiga iyaga iyo dawladdii markaa maanta waxaanu nahay mucaaradnimadaas oo ah mid aanu markaa ishayno qaybtii garabka midigta oo runtii siyaasado cunfiya oo adag oo qallafsan dalka la soo dejiyey taasoo imika ay dagaalo badan naga dhexeeyaan waxyaalo badanna la bedelay hawshaasna sii socon doonto runtii markaa taana waxaa lagaga bixi karaa in codka la dhiibto in dimuqraadiyadda la fahmo iyo in qof waliba halkiisa maaragtay awooddiisa uu ku saaro sidii qoyskiisa naftiisa faamiligiisa marka hore u daryeeli lahaa kadibna bulshada u guntado runtii markaa taasna waa mid meesha ku jirta in aydun maaragtay xoogga saartaan la xisaabtanka xisbiyada la xisaabtanka annaga runtii aanu idinka mahadnaqayn inaa soo saarteen oo anigu imika teramkii labaad aan soo dhammaysanayo oo 2 sano ay noo hadhay aynu deegaankii nahay ambition in la yeesho oo baarlamaanka la galo waxaasoo dhan waa wax wanaagsan oo dadka ku abuuran oo laga dhaxlayo dalkan marka runtii waxaan leeyahay dalkanna waa dalkeennii dadka ilaahay subxaana wa tacaala dhibaatadu haysato ee kaamamka ku jira ee waaweyn oo aan jecelahay inay 65 ka badan yihiin oo hooyooyin u badan oo ilaa 10 sanood kaam ku jiray ilaahay subxaana wa tacaala iyagana u soo duceeya in ilaahay sharci siiyo dadka caruuraha laga qaatay in ilaahay subxaana wa tacaala u soo celiyo inta wanaagga haysatana ilaahay inuu siyaadiyo mar labaad waxaan leenahay maalintani waa maalin runtii qiimo leh qiimaheeda iyo qaayaheedana waa laga sheekeeyey oo runtii kuma sii tiigaalayo waxaan idin leeyahay runtii wuxuunbaa u baahannahay midnimo iyo walaalnimo isku soo dhowaansho gacmaha in la isqabsado waxaan ku soo dhaweynayaa alfanaan cabdirasaaq saleebaan gaas maanta weliba keligii maahe xuseen oo hees cusub daawaa ka soo qaaday Somaliland ayaa ila heesay waynaka Samay Somaliland sarayu hayantayo nabadna lagu seexayo salawiyo qalina male Samay Somaliland sarayu hayantayo nabadna lagu seexayo salawiyo qalina male toban kamay bulshay wawsi manahe intaad kulli sara kacdan saxabka ila wada tumo sareeda ku dabaaldega toban kamay bulshay wawsi manahe كل سرك عذن سعب كيلا ودا تمو سريدا كودا بانتقا سماي Somaliland dadkiisa samaxyo man laga suuliyo salawiyo qayna male سماي Somaliland dadkiisa samaxyo man laga suuliyo salawiyo qayna male
sideediyo tobanka May bulshay waa simanahe intaad kulli sare kacdan sacabka ila wada tumo sareeda ku dabaldaga sideediyo tobanka May bulshay waa simanahe wada tumo sareeda ku dabaldagay Somaliland calankii lagu suriyo sareeda ka muuqato aduun bay saxal baxdee samay Somaliland calankii lagu suriyo sareeda ka muuqato aduun bay saxal baxdee sideediyo tobanka May bulshay waa simanahe intaad kulli sare kacdan sacabka ila wada tumo sareeda ku dabaldega sideediyo tobanka May bulshay waa simanahe تدخلي سرك عدن صعب كيلا وذا تمو سريدك وتبردقا الدنيا صعداشي ساميني سضيحات نبدا كلا سناتو وصفقة هورك الرعدي سوماليلاند سميئي كواركول سوماليلاند سميئي كواركول الدنيا صعداشي ساميني سضيحات نبدا كلا سناتو وصفقة هورك الرعدي سوماليلاند سميئي كواركول سوماليلاند سميئي كواركول شجع سمانتو لغو ضي صفاتكو صدقو بدقه شجع سمانتو لغو ضي صفاتكو صدقو بدقه سوماليلاند سميئي كواركول سوماليلاند سميئي كواركول شجع سمانتو لغو ضي صفاتكو صدقوا بدقه كل شجع سمانتو لغو ضي صفاتكو صدقوا بدقه سوماليلاند سميئي كواركول سوماليلاند سميئي كواركول اوغو سيرما ويديو هيا هما سيداويه سيري تقديري هيا هما سيداويه كسما دلحيس إيو هيا هما سيداويه بدا ساحل إيا خو هيا هما سيداويه بورا حسنا إيو هيا هما سيداويه أودالي الصول تكمرودي جحبا أودالي الصول تكمرودي جحبا وسرك عيسو ماليلاند سميئي كواركول وسرك عيسو ماليلاند سميئي كواركول اوغو سيرما ويديو هيا هما سيداويه سيري تقديري هيا هما
كسمات الحيسكيو هيا هابا سيداوية بدا ساحل ياهو هيا هابا سيداوية بورها سنة أكيو هيا هابا سيداوية أوضالي الصول تكمرودي جحبا أوضالي الصول تكمرودي جحبا وسرك عيسو ماللا سميه كواركول وسرك عيسو ماللا سميه كواركول lagu barbaro suluf loo qayba sadkaadi ahaato nimco alla ku siiyey Somaliland sami iyo kuwarkul Somaliland sami iyo kuwarkul sabalagu barbaro suluf loo qayba sadkaadi ahaato nimco alla ku siiyey Somaliland sami iyo kuwarkul Somaliland sami iyo kuwarkul calan suurad waxaan oo sahal aan ku imado saadikugu daqee calan suurad waxaan oo sahal aan ku imado saadikugu daqee Somaliland sami iyo kuwarkul Somaliland sami iyo kuwarkul calan suurad waxaan oo sahal aan ku imado saadikugu daqee calan suurad waxaan oo sahal aan ku imado saadikugu daqee Somaliland sami iyo kuwarkul Somaliland sami iyo kuwarkul ogow serma weydiyo hayahaba sida weeye seerihi togdheeri hayahaba sida weeye kusama dalxiiskiyo hayahaba sida weeye badda saaxil iyo qaw hayahaba sida weeye buraha sanaagiyo hayahaba sida weeye awdaliya sool takamarodi jexba awdaliya sool takamarodi jexba usaraka ciiso Somaliland sami iyo kuwarkul usaraka ciiso Somaliland sami iyo kuwarkul serma weydiyo hayahaba sida weeye seerihi togdheeri hayahaba sida weeye kusama dalxiiskiyo hayahaba sida weeye badda saaxil yahow hayahaba sida weeye buraha sanaagiyo hayahaba sida weeye awdaliya sool takamarodi jexba awdaliya sool takamarodi jexba usaraka ciiso Somaliland sami iyo kuwarkul usaraka ciiso Somaliland sami iyo kuwarkul sami iyo kuwarkul sami iyo kuwarkul waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka محمد آدن ليلان. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا بنعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بالنعمة إخوانا. سورة القرآن كي وحويا سورة أي سوماليلاند كفر لذوي وسورة أي قرتين إن أي كفر يسيان أضياشي سميي ee ka dambeeyay gooni isku taaga Somaliland 18 May 1991 waxa weey bini aadamku
waxaynu u baahannahay markay dhibaatadu dhacdo madax caqligoodu uu la jaan qaadi karo diintooda xigmadda u sarraysa ee bini aadamku helaa waa qur-aanku waxa weeyaan waa xigmad ilaahay ka timid aadamuhuna waxay raadinayaan in ay xigmad yeeshaan xigmad ka badan qur-aanka oo aad keeni kartaa haddaad bini aadam tahay ma jirto sidaa darteed qofka garashadiisa iyo ceelka uu ka cabbaa ay noqoto diintiisa iyo kitaabka qur-aanka ah wuxuu garan karaa waxyaabo mucjisaa oo aanay dadka kala garan karin taas ayay ku salaysan tahay nabadda maanta ka jirta Somaliland sidaad arkaysaana heestan imika xamar baa laga soo sameeyay nin xamar joogaa soo sameeyay heestii imika inoo qaaday fanaankii u dambeeyay aadamuhu meel kastoo ay joogaan markay si wax wanaagsan ka fikirayaan isma diidaan ninkaas halkaas jooga xamar ee maanta aynu garan karno dhibaatada ay ku sugan tahay wuxuu gartay nabadgelyadu qiimaha ay leedahay hees buu hadiyadii nooga dhigay isagoo cabiraya dareenkiisa waxaan leeyahay noolaado waxa aynu u baahannahay in aynu ka korro inaad ka korto markaad wadaniyadda ka fikirayso inaad ka korto inaad xisbi tahay inaad ka korto inaad kulmiye tahay waa inaad garataa inaad Somaliland tahay ayaamaha hore adag baynu soo maray waxaynu kaga baxnay midnimo wactasimu bihablillaahi walaa tafarraqu inaynaan kala jajabin inaynaan iska hor iman inaynaan isdiidin maanta waxaynu ognahay dareenno 18 May inkastoo aynu xusayno oo maalintii midnimada tahay laakiin waynu ognahay meelo ka mid ah Somaliland in ay shaqaaqooyin ka jiraan waxaynu ugu ducaynaynaa dadkaasi in Ilaahay caqliga u soo dejiyo oo ay gartaan inaanay kala maarmi karin oo ay gartaan nabad la'aanteed aanay noolaan karin nabad la'aanteed aanay Somaliland jirayn mas'uuliyad weyn baa saaran qofka waxa weeyaan haddaad reer daacad u tahay Somaliland daacad uma noqon kartid waxa lagaaga baahan yahay inaad reerka ka guurto oo waxa ka weyn aad tagto oo aad noqoto qof Somalilandra sidaas uu dhiigaagu ku qaboobaya sidaas ayaa dadka kula heshiinaysaa shukran maxamed aad iyo aad baad u mahadsantahay maxamed wuxuu ahaa safiirkii hore ee Somaliland u fadhiyay Norway maxamed aad buu mahadsan yahay aad iyo aad buu mahadsan yahay wanaagga uu nafray maxamed aad baad u mahadsantahay mar labaad iyo mar saddexaadba gudoomiyaha xisbiga kulmiye maxamed cabdi ismaaciil ku soo dhawow mikrofoonka adoo mudan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدني مروبة ومهدسنتهين تدوينين كسو غيب قلي حسك 18 كمي ما أنت بشو أفري 8 كمي وبش رمضان درادة دايين هروق صور لقناي أيضا 18 كمي كوبيغان تاهي مالين جمعة أو رمضانا waxaan doonayaa halkan hadal badan inaan idhaahdo maaliman inaan u hambaliyeeyo ummadda reer Somaliland meel kasta ay joogaan dalkii gudihii iyo dibadda ummadda reer Somaliland meel ay joogaan waxaan leeyahay hambaliyo 18 May insha Allah sanadkiisana Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaynu ku waarno nabadgelyo barwaaqo iyo wadankeena insha Allah billahi karim i'tiraaf ka helaa waxaan kaloo doonayaa inaan salaan hawada u mariyo madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici waxaan kaloo doonayaa inaan salaan hawada u mariyo ciidamada qalabka sida ciidanka qaranka ee ku sugan jiidaha xuduudaha dalka iyo magaalooyinka waaweynba ayagii xaasaskooda iyo carruurtooda waxaan leenahay ciid wanaagsan ku ciida insha Allah bidnillaahi kariim wax kaloo aan doonayaa halkan insha Allah bidnillaahi kariim inaan uga ducayno dunida aynu ku noolahay
lagama waayo dhibaabo iyo waxyaabo dhaca wanaag kastoo aynu soo qabsanno haddana de ummad baynu noo wax waa dhacdhacayaan dhammaanteen waxaan rajaynayaa inaynu u ducayno waxyaabaha yaryar ay nagu soo duulduulaya in ilaahay ku dhammeeyo si wanaagsan oo nabadgelyo leh oo is-afgarad leh sidii ummadda reer somalilan isu afgaran jirtay waxaan ka hadalka kaga baxayaa guul ummadda reer somalilan ha noolaato noolaada idinkuna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu okay walaalayaal waa fadhiisateen baan u malaynayaa hay markaas iminka waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka farxiya siciid axmed iyo deeqa biixi oo ah garabka haweenka ee Denmark oo inoogu ah gudoomiyaha oo maanta ina soo booqday halkan ku soo dhawaada deeqa biixi adna soo dhawow farxiya adna soo dhawow soo dhawaada بسم الله الرحمن الرحيم maanta aad iyo aad faraxsanahay horta waan islaamay dhammaan shacabka meesha iskugu wada yimid oo dhan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat maanta waa maalin qiimo leh bishii 18 May maalintii muxuu ahaa Soomaaliland ay xornimada qaadatay 18 May waxay xambaarsan tahay waxyaabo badan farxada dhib leh xasuus badan reebaysa maanta aad iyo aad ayaa u kacsan tahay shuruudaydu waxaan ka imid magaalo 2 saacadood jirta waxaan muxuu ahaa rabay inaan ka soo qayb galo farxadan muxuu soo qaban qaabiyeen jaaliyada Soomaaliland ee Oslo marka waxaan fursada aan rabaa inaan horta aan salaamo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ku xigeenka waxaan rabaa inaan salaamo saddexda gole iyo ciidamada qaranka ee Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland guul السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمامتينبا مدني iyo marwooyin dadka sharafta leh ee xafladan maanta isugu yimi horta waa salaamantiin marka labaad magacaygu waa Deeqa Biixi Faarax waxaan ahay gudoomiyaha garabka haweenka ee wadanka Denmark marka dhamaantiin waxaan leeyahay ciid wanaagsan iyo hambaliyo 18 May waxaan aad horta ugu hambaliyeynayaa jaaliyada Somaliland ee wadanka Norway sida quruxda badan ee sharafta ku jirto iyo qiimuhu xafladan u soo abaabulay marka labaadna waxaan salaamayaa madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo saddexda xisbi qaran iyo ciidamada qalabka sida ee jiida hore jooga ilaahay waxaan ka baryayaa maanta shaqaaqa yar baa ka jirta wadankeena laakiin wax weyn ma aha waa wax laba walaalayo yaani dhamaanayba in ilaahay isku keeno nabad iyo maxaa la dhahay bashbash iyo barwaaqo ilaahay uu ka dhigo aamiinta ku daba xidha mar labaadna waxaan salaamayaa madaxda sharafta leh ee ka soo qayb galay xafladan ee wadanka reer Oslo mudane iyo marwooyo intii leegayeenba aniguna waxay iga ballan markaan wadankayga ku laabto insha Allah wiigan baan tagayaa inaan salaan idinka wada gaarsiiyo sida quruxda badan ee xafladda u soo habayseen iyo sida quruxda badan ee isugu xidhantiin sidaasana loo baahan yahay qabiil waxba ma taro shalay bay ahayd markaynu carareynay ee meesha doctay teegaynay qarannimada iyo xisbiyada horta hala kala saaro qarannimada Soomaaliland waa muqaddis waa taynu soo wada cararnay aynu soo wada lugaynay halkaan nime marka qarannimada Soomaaliland waa muqaddis waa lama taabtaan aniga meel xisbigan ku jira xisbi mucaarada laakiin Somaliland ma hadda mucaarad Somaliland waa wan tartankii uu dhamaaday waxaan leeyahay kii laga guuleystayna hambaliyo kii guuleystayna hambaliyo aniga saddexdu xisbi qaran way sameeyeen ka qabsada waa madaxweynahayga wuxuu iga mudan yahay sharaf qiimo hambaliyo iyo inaan maxaa la yiraahdaa meeshu istaagabada aan garab taagnaado intaas uu iga mudan yahay qabiilo waxba ma sheegayo maanta waynaga qurbaha ka taagan insha Allah dib baa loo noqonayaa wadankeennii aqoonsigu waa degdeg baynu noqonaynaa inaga iyo carruuraheen iyo rageennaba marka isku duubnaada hadaa tiin Norway anaguna Denmark hadaan nahay sidoo kale aan rajaynayaa waan idin wada salaamayaa dhamaantiin barsho wanaagsan
iyo martida inooga timid Denmark aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dhammaantood Cadmaawi Mujaahid Axmed Cadmaawi soo dhawow Somaliland marxalado far badan bay soo martay maantana alxamdulillaah rabbil caalamiin waxay maraysaa marxalad wanaagsan waayo nabad bay leedahay waa la dhisay waxaa ka dhacay doorashooyin fara badan madaxweynayaal fara badan baa soo dhaadhaafay maantana waa alxamdulillaah nicmadaas waxay ku timid waxa weeyaan waxaan dhegaystay afweeno mar hadlaya oo wuxuu lahaa dagaalku waxaan sheegayaa xornimadu waxay ku timaadaa dhiig fara badan oo lagu daadiyo Somaliland waxay ku timid dhiig fara badan oo la soo daadiyey niman baa u soo dhintay niman aan asxaab nahay oo iyagoo dhalinyaro ah oo jecel inay noolaadaan haddana isgeeyey meeshaas si aad maanta sidaas oo kale aad u faraxdaan idinku hadalka ku dheeraan maayo Somaliland maanta way fiican tahay farax Sidiiq Farax Sidiiqo uu ku soo dhawo mikrofoonka inta kalena aad sheegi doonaan u malaynaya aad iyo aad buu mahadsan yahay Shucayb oo ka mid ah gudida culculus ee jaaliyada bismillaahi raxmaani raxiim allahumma salli calaa sayidina Muhammad wa calaa aalihi wa sahbihi wa sallam ha ahaatee gobonimadu waa libin ku taxan geedin nololeed waxaan idinku gubaabinayaan idin leeyahay iswada cafiya iswada saamaxa idinkuna noolaada ayaan idin leeyahay maanta farxadan iyo munaasabadan aynu ku sugannahay oo ah maalinta qarannimada Somaliland waxaan halkan hambaliyo iyo salaan aan ka leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Ismaaciil Cabdilaahi Saylici marwooyinkooda iyo golayaasha lamaanba waxaan leeyahay iyo shacabka Somaliland meel kasta ay joogaan ba hambaliyo ya Saciid bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadalkii waaba la wada yidhi horta waxaan doonayaa inaan salaamo dhammaan ummadda reer Somaliland guda iyo dibadba madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka golaha baarlamaanka golaha guurtida ciidamada qaranka iyo dhammaanteenba waxaan leeyahay hambalyo maalinta 18 May intaa ka bacdi in yarun baa ku darsan lahaa waxaan runtii aniga aad ii soo jiidatay caawa caruurta yaryar ee loo soo labisay ee gashan dharkii hidaha iyo dhaqanka iyo kuwa ku xardhan calanka Somaliland runtii aad iyo aad bay ii soo jiidatay ina yar baa jirto aad u yar oo runtii halkan maraysay ma sha Allah ban la adeer soo barbaar caruurteena waa inaynu dhaqanka barro intaas baan ayaan xagaana idin kala dardaarmi lahaa waayo waa muhiim ilmaha yar waxa lagu ababiyo ma ilaaba hadhow caruurteena aynu ilaalino haddaynu reer islanahay hawluhu way badan yihiin marka halkan caruurta waa in laga warhayo caruurta waa in iskuulkooda laga warhayo waa in ay meelaha u socdaan laga warhayo waa in ay iscaawisaan oo dadku jaarkii waa in iscaawiyaan waxa jira dad jaara oon haddana wada hadlayn taa waa laga fiican yahay waxa fiican hooyooyinku inay wada shaqeeyaan caruurtooda ay ilaaliyaan hooyadunba ka mas'uul caruurta inta badan raggu waxaan iska nahay ma sha Allah marka idinka hawsha badan wadee de intaana ku darsado caruurteena inoo ilaaliya calankan hantidiyo naftaba u huro calankan hantidiyo naftaba u huro maxaanad kacay alyay geesiya
محانا كعاي هلي قيسيا ويو بدكير adoo haqal kalay halgaad ku dhufto hooseeyay dartaa waxaa hanad kacay halyay geesiya waxaa hanad kacay halyay geesiya oyow badkee adoo haqal kalay halgaad ku dhufto hooseeyay dartaa ubsii ma lahan وهي بفضيل وسيمانان وهي بفضيل والكان كوي بيني ديت كادقني هوغا تاليني والكان كوي بيني ديت كادقني هوغا تاليني نفسي نحيران نفتبه يفني نفسي نحيران نفتبه يفني أطير حاليو لبادنا قهو ويقاقا كوار حالي علم الكالي ويقاقا كوار ويقاقا كوار حالي علم الكالي ويقاقا كوار كوهليو هارها نبردا نبكي كوهليو هارها نبردا وما يسيقو وهيري كركا وما يسيقو وهيري كركا أنا بوهانا نو هاقاقو دوين هركاقا قبوهو سيسكا عقدقين وما يسيقو وهيري كركا وما يسيقو وهيري كركا أنا بوهانا نو هاقاقو دوين هركاقا قبوهو سيسكا عقدقين وبسي مالهن وهي بفضيل وبسي مالهن وهي بفضيل كل كان كوي بيني هديت كادقني هوغا تاليني كل كان كوي بيني هديت كادقني هوغا تاليني نفسي نحيران نفتبه يفني نفسي نحيران نفتبه يفني أطير حاليو لبادنا قهو ويقاقا كوار حالي علم الكالي ويقاقا كوار 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 socdaashee saaminaysa dayaxaad nabadda kala sinato safka hore ka raacday Somaliland sami iyo kuwaar guul Somaliland sami iyo kuwaar guul adduunyada socdaashee saaminaysa dayaxaad nabadda kala sinato safka hore ka raacday Somaliland sami iyo kuwaar guul Somaliland sami iyo kuwaar guul
bulsha jecel samaanto lagu dayin sifaadku sadirkuugu deeqee bulsha jecel samaanto lagu dayin sifaadku sadirkuugu deeqee Somaliland sami iyo kuwa argul Somaliland sami iyo kuwa argul bulsha jecel samaanto lagu dayin sifaadku sadirkuugu deeqee bulsha jecel samaanto lagu dayin sifaadku sadirkuugu deeqee Somaliland sami iyo kuwa argul Somaliland sami iyo kuwa argul ogow serma weydiyo ayahaba sida weeye seerihi togdheere ayahaba sida weeye kusama dalxiiskiyo ayahaba sida weeye badda saaxil iyo haw ayahaba sida weeye buraha sanaagiyo ayahaba sida weeye awdaliya sool تكمرودي جحبا أوضلي الصول تكمرودي جحبا وسرك عيسو ماللا سميه كواركول وسرك عيسو ماللا سميه كواركول أبو سر مويديو حيها ما سيداويه سيري تقدري حيها ما سيداويه كسما دلحيسكيو حيها سيدا ويه بدا ساحل يا خو حيها سيدا ويه بورها سناكيو حيها سيدا ويه أوضلي الصول تكمرودي جحبا أوضلي الصول تكمرودي جحبا وسرك عيسو ماللا سميه كوهركول وسرك عيسو ماللا سميه كواركول سبلاغو بربارو سلوفلو غيبا صدقادي أهاتو نمعو على كسي Somaliland سمي إيا كواركول Somaliland سمي إيا كواركول سبلاغو بربارو سلوفلو غيبا صدقادي أهاتو نمعو على كسي Somaliland سمي إيا كواركول Somaliland سمي إيا كواركول على صورة وعانو سهل أنكو إمبو سادركو بدقيه على صورة وعانو سهل أنكو إمبو سادركو بدقيه Somaliland سمي إيا كواركول Somaliland سمي إيا كواركول على صورة وعانو سهل أنكو إمبو سادركو بدقيه على صورة وعانو سهل أنكو إمبو سادركو بدقيه Somaliland سمي إيا كواركول Somaliland سمي إيا كواركول أوغو سيرما ويديو أيها سيدا ويه سيري تقدري أيها سيدا ويه كسما دلحيسكيو أيها سيدا ويه بدا ساحل يا خو أيها سيدا ويه buraha sanaagiyo أيها سيدا ويه أوضلي الصول تكمرودي جحبا أوضلي الصول تكمرودي جحبا وسرك عيسو ماللا سميه كواركول وسرك عيسو ماللا سميه كواركول
سلم ويديو حيها باسدا ويه سيري تقدري حيها باسدا ويه كسما دلحيسكيو حيها باسدا ويه بدا ساحل يا خو حيها باسدا ويه بورها سناكيو حيها باسدا ويه أوضلي الصوت تكمرودي جحبا أوضلي الصوت تكمرودي جحبا وسرك عيسو ماللا سميه كواركول وسرك عيسو ماللا سميه كواركول سميه كواركول سميه كواركول المال lagu dawooba